بسم الله الرحمن الرحيم كسر هذا مقال سرا أو لجه لا يودك السعودية مقال كاس أياه وحكوسها بسنة هي شر وكقرب قال يودك السعودية ودك السعودية أياه وحصوبا لجي موقف كوكتها جاي هي ومدى الصوماليات حطيت هاي كوا كنا الإثيوبية تجيبوتي يكوا كنا الصومالي ده أنت هذا كلبا دمان ودك السعودية أياه سبرة وحوش جاي إن دمان الصومالي ده جيس كأفريقيا كنا لهويس كندونه ودك إثيوبيا isagoo waddanka Sacuudiga ku daray xitaa waddanka madaxa bannaan ee Soomaaliyeed ee loo yaqaan Djibouti haddaba muuqaalkaas ayaanaan idinka dhexgelinayn wax af Soomaali ah oo macna ah si aad muuqaalka Carabiga si toos loo daawado kadib markuu muuqaalku dhamaado ayaynu af Soomaali u macnayn doonaa iminkana daawasho wanaagsan أو يجب أن يكون على شاكلة الدستور الأمريكي الذي وحد أمريكا ومنحها الديمقراطية. أما حقل أوغادين الواعد في إثيوبيا فسوف يوحد القرن الأفريقي برئاسة إثيوبيا، وسوف يتم بناء جسر بين القرن الأفريقي والجزيرة العربية، هو جسر النور الذي يربط بين مدينة النور في جيبوتي ومدينة النور في اليمن، وهذا يتطلب عدة أمور. الأول: 1. تحقيق السلام بين العرب وإسرائيل. 2. تغيير النظام السياسي في إيران. 3. وحدة مجلس التعاون. 4. تحقيق السلام في اليمن وإحياء الميناء الحر في عدن، لأن ذلك سوف يحقق التوازن الديمغرافي في العمالة بالخليج. 5. إنشاء قوة عربية بمباركة أمريكية وأوروبية لحماية الدول الخليجية والعربية والمحافظة على الاستقرار. 6. السرعة في إرساء قواعد الديمقراطية بثوابت إسلامية في العالم العربي. 7. العمل على إيجاد كردستان الكبرى بالطرق السلمية، لأن ذلك من شأنه أن يخفف من المطامع الإيرانية والتركية والعراقية التي ستقتطع الثلث من كل دولة من هذه الدول لصالح كردستان. وأرجو التوفيق والسلام في الشرق الأوسط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, General. Thank you. Well, first of all, I'd like to thank Elliot Abrams and the Council on Foreign Relations for hosting us today. I also want to point out that I have not just come here alone from Israel. I have two very important colleagues with me, Brigadier General Dr. Shimon Shapira, the leading expert, as far as I'm concerned, in Israel on the subject of Hezbollah, and Dr. Colonel Jacques Naria, who has for years served the Israeli government with his knowledge of the Middle East and has made our discussions workable in many respects. Our standing today on this stage does not mean that we have resolved all the differences that our countries have shared over the years, but we hope we'll be able to address them fully in the period ahead. We have been meeting in our capacity as heads. waa tahay waxaad daawateen barnaamijkii muuqaalkii sirtaha oo aad ku daawateen luqadda af carabiga haddaba haddii aynu halkaa ka sii wadno oo aynu qaybta af Soomaali ku micnayno intiina aan fahmin waddan shirkan oo loo yaqaano Council Foreign Relations ayaa wuxuu ka dhacay waddanka Israel taasoo uu ka soo qayb galay waddanka Sacuudiga ayaa wuxuu metelayay ninkan oo loo yaqaano Anwar al-Ghashki isla markaasna madaxda ugu sareysa ee sirdoonka waddanka Sacuudiga Anwar al-Ghashki oo hadalkii aad aragteen intiina af carabiga fahantay in Soomaaliya la hoos keen doono waddanka Ethiopia isagoo ku sheegay markaa isticmaalaya magaca
qarna Afriqiya ama geeska Afrika jamhuuriyadda Djibouti iyo qaybta Soomaalida imika Ethiopia haysatana si toos ah uba sheegayay in kheyraadkooda halka laga talaali doono haddaba haddii aynu u sii gudubno inaynu isku micnayno af Soomaali kuna bilowno qodobadii ugu horeysay Awar Cisqi wuxuu ku bilaabay markiisii koobaadba ogaadeenaya oo ah dhulkan aad garanaysaan ee Soomaalida Ethiopia iyo Djibouti iyo qarna Afriqiya waxa la hoos goyn doonaa ra'iisadda ama madaxtinimada Ethiopia ayaa la hoos goyn doonaa iyadoo Madiinatu Nuur oo ku taala wadanka Djibouti laga talaali doono kheyraadka halka ku jira loona talaali doono daanta kale ee badda markaas Yemen magaalo kale oo iyadana la magaco leeyahay Madiinatu Nuur kadib halka markuu ka sii waday wuxuu taxay qodobo fara badan isagoo sheegay in rugniga labaad ee la mideynayaana uu yahay marka kaas geeska Afrika lagu mideeyo ra'iisadda Ethiopia lagu mideeyo rugniga kale ee markaas yahayna in kheyraadka khaliidka lagu midaabayo meesha la yiraahdo Rabuul Khali oo ah rugni meesha labaad ee ceelasha shidaalka ugu badan yihiin ama gobolka labaad ee bariga dhexe ceelasha shidaalka ama khaliidka ay ugu badan yihiin oo sheegay in iyagana xagga lagu mideeyo xaggana marka Ethiopia la hoosgeeyo meesha kalena in Rabuul Khali oo markaas Sacuudiga hoos timaada la hoosgeeyo khaliidka haddaba Sacuudiga si ka sii hadlaya arrimahaas wuxuu yiri ma soconayso haddii aan qodobadan la furin in qarniga Afriqiya geeska Afrika la hoosgeeyo Ethiopia Rabuul Khali oo meesha labaad shidaal ku jira khaliijkana wadamada khaliijka lagu mideeyo kheyraadkooda ma soconayso haddii aan qodobadan la sameyn qodobadiiba haddaba tahay markan Awal Cisqi wuxuu yiri qodobka koobaad wuxuu yiri saaxiibtinimada Israa'iil iyo Carabta iyo heshiis dhexmara Carabta iyo Israa'iil qodobka koobaad ayuu ku sheegay in ay tahay qodobka koobaad ee fuli kara taas hadda waa in Ethiopia la hoosgeeyo Soomaalida iyo in Rabuul Khali lagu mideeyo Carabta kale khaliijka waxay qodobka koobaad wuxuu ku sheegay saaxiibtinimada Israa'iil iyo heshiis nabadeed oo ay saaxiibtinimada Israa'iil ku yihiin qodobka labaad wuxuu yiri waa in la bedelo siyaasadda Iran in la bedelo ayuu qodobka labaad ku sheegay qodobka saddexaad oo soo qaatay wuxuu yiri in la mideeyo wadamada gacanka markaas ay xagga siyaasadda ka midoobaan qodobka afraad ee uu sheegay wuxuu yiri waa in Yemen nabad ay noqoto dibna loo mideeyo Miinaa al-Xor wuxuu yiri dekadii xor tahayd dib loo sameeyo qodobka shanaad ayuu wuxuu ku sheegay in la dhiso ciidan Carbeed oo ka barakaysta ama ka mubaarakaysta sida hadalka uu dhigay ka barakaysta Mareykan iyo Yurub si ay loo ilaaliyo gacanka Carabta sidaas ayuu hadalka u dhigay qodobka shanaad ayuu yiri sida uu qodobka shanaadna wuxuu yiri sida ugu dhaqsaha badan waa in loo faafiyo dimuqraadiyadda Islaamka ama wuxuu ku sheegay dimuqraadiyatul Islaamiya qodobka toddobaad ee ugu dambeeyay ayuu Awar Cisqi wuxuu yiri waa in la mideeyo Kurdistaan taweyn isagoo marka afka Carabiga adeegsanaya Kurdistaan al-Kubra Kurdistaan taweyn waa in la mideeyo oo la dhiso waliba taasoo lagu keenayo buu si nabada in Kurdistaan lagu keeno si loo naafeeyo buu yiri loo khilaafkooda loo yareeyo damaca wadamada Turkiga iyo Ciraaq iyo Suuriya saddexda wadan oo sida la og yahay Turkiyiintu saddex meelood marka loo qabiyo dhulkooda ay leeyihiin waa in damacooda la yareeyo sidoo kale siyaasadda wadanka Turkiga ayaa halkaas iyadana Soomaaliya ka soo galayso toddobada qodob ayuu taxay Awar Cisqi oo markaas metelayay sirdoonka wadanka Sacuudiga ama xukuumadda wadanka Sacuudiga haddaba toddobada qodobba si dadban ayay u saameynayaan laakiin se hordhaca ugu horeeya aan ka soo qaadano in la mideeyo oo la hoosgeeyo Soomaalida in la hoosgeeyo wadanka Ethiopia ee aan muslimka ahayn ayaa ah waxa ugu weyn ee ay Soomaalida dhigaha weynaadeen isagoo markaa isticmaalaya ogaadeynaya iyo qarna Afriqiya iyo Djibouti labadaas si toos ah u sheegay magaca Soomaaliyana uu adeegsaday qarna Afriqiya geeska Afrika waa daawateen baan u malanaya muuqaalkan oo intiina Carabiga taqaanana si toos ah ayaad u fahmaysaan intiina aan aqoon asxaabtiina marka ay idin la joogtay af Carabiga fahmaysa ayaa idin macnaynaysa muuqaalkan oo ah muuqaal aad iyo aad ay Soomaalidu ula yaabtay markii soo baxay haddaba waxaan u gudbi doonaa qaybta labaad oo ku falaqayn doono muuqaalkan waa tahay dhanka kale waxaanu ku soo dhawaaneynaa inagoo ku sii jirna barnaamijkeennii sirtii qarniga ee wadanka Sacuudiga iyo dhex martay wadanka Israa'iil haddaba arrinkan oo soo daawateen oo ah sirtii ugu weyneed qarnigan ayaynu sii falaqaynteedii imika qaybta labaad ku sii gelaynaa waxaa la jooga halkan Maxamed Saleebaan oo ah
nin Soomaaliya oo ku xeel dheer wadamada Carabta iyo bariga dhexe maxamed markaa daawatay muuqaalkan sirta ee ummadda Soomaaliyeedna in badan saameynta ku yeelanaya maxaa horta kaaga soo baxay adoo isku soo duuduubay afka Carabigana si wanaagsan u yaqaan بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد waxa aniga iga soo baxay horta wax weeye arinkaas waa wax isku xiran moogtay wada wax weeye waadiga arka say marka wax weeye ma ay u dhacday shirka aanu halkan ka daawanay maartay sirdoonka Israa'iiliyo Sacuudiga inay wax weeye maartay dhacday sanadka hore waxay ahayd 2015kii iyo dabadeedna waa tiida wax weeye Sacuudigu isugu yeeray madaxda geeska Afrika oo ay yimaadeen marka wax weeye madaxweynihii Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihii Itoobiya iyo madaxweynihii Eritrea iyo madaxweynihii Djibouti intuba ay tageen inkastoo wax weeye maartay saxaafadda waxa loo soo gudbiyay inuu ku saabsanaa kulankaas arrimo kale oo ku saabsan badda gacanka si loo ilaalin lahaa oo laga ilaalin lahaa khatartii saameynta ku leeyihiin Xuutiyiintu laakiin si anigu waxaan u maleynayaa wax weeye maartay asal ahaan waxa shirkaas ku socda si loo fulin lahaa in geeska Afrika loo mideen lahaa uu hoos iman lahayd Itoobiya oo arrinkaasna ay tahay khatar ay ku tahay qarannimada Soomaaliyeed saasi aniga ila tahay laakiin Sacuudigu wuxuu si toos ah u soo hadal qaaday oo carabkiisa ku dhuftay gobolkan Soomaalida ismaamulka Soomaalida Itoobiya loo yaqaan Ogaadeenaya oo uu yiri gobolka Ogaadeenaya Itoobiya iyo qarniga Afriqiya oo markaa uu ka jeedo geeska Afrika iyo Djibouti intaba waxa la hoos keenayaa wadanka Itoobiya isla markaasna kheyraadkooda ku jira waxa loo talaalayaa Madiinatu Nuur oo ku taala wadanka Yaman iyadoo laga talaalayo Madiinatu Nuur ku taala Djibouti taas micnaheedu maxay tahay maxaa faa'iido ugu jira loo oran karaa in ummad islaamka la hoos keeyo wadan gaala wallahi taa anigu wax uu Sacuudigu shakhsi ahaan faa'iido uu ku qabo taada wax weeye maartay ilaa laanka wax weeye aniga ima muuqato laakiin si anigu midan garanayo inuu wax weeye talaabooyinku u baahayeen Mareykanka ama wax weeye Israa'iil ay ka fuliyeen geeska Afrika inaanay sameyn kareen intay noo yimaadaan Soomaali ahaan oo yiraahdaan saas la idin karaba inaad sameysaan madaxdeena waa laga heliyaa hada wax dad la iibsan karo oo wax saxiix kara laakiin se waxa ay u baahan tahay in marka wax weeye dad ay shacabka Soomaalida ay ogol yihiin oo ay u arkaan walaalo islaama in waxa uu fuliyo sida marka maamulka wax weeye dawladda Sacuudiga oo kale aan u aragno wax weeye dawladda islaam oo walaaltinimo islaam ay naga dhaxayso kuwaas baa ugu hawl yar inay fuliyaan marka iyagu waxay gaar ahaan ay ka faa'iidiyaan anigu shakhsi ahaantay ma garanayo laakiin se waxay nabartay dhacdooyinka caalamka iyo taariikhiyan intay dawladdaas ay jirtay inay yihiin dawladda ugu horeeya number 1 ee fuliya danaha Mareykanka iyo reer galbeedka qodobada uu Anwar Cishqi sharaxayo waxa ku jirta wadanka Turkiga iyo Suuriya iyo Iran oo uu leeyahay halaga jaro dhulka Kurdida ama Kurdistan loo yaqaano taasoo uu sheegay in Kurdistan la mideeyo isla markaasna la dhiso si ay wadankaasi wadamadaas saddexda wadan ay u daciifaan sidoo kale saddexda wadan waxa ku jirta wadanka Turkiga oo inta badan Soomaaliya caawiya marka ma la oran karaa dhinacaasna saameyn bay kaga yeelanaysaa maadaama wadankan Sacuudigu uu xagga Turkigana uu sheegay in loo baahan yahay in la laciifiyo ها وقصب واتي أيام دويد وحوي مارتي أفغانبس للدمعية أنا لقسم يضلك التركي وواتي وفش المي مركا واتي ده وحوي أسرار بدن أي صوفة كتيو إنه دولتها لو كلها أفغانبس كفش المي تركيا إنه السعودية يو إمارات كأي كتيرين وحتى قدر بع شيكتيو أو حناقصنا دو تري دولتها قار كميدا خليج كأي وحوي كدم بيجي إن فلكه إلهي أمرك وأنا قارقني دعدا سمركي فشلنتي إناني حتى وحوي سعود ووحهم بليو وسود درين مركا دولة أردوغان وأنا أوران دوحوية الحمد لله إن الدوحوية مارتي خطرتي إذا كوي من لهيدين إذا كوي من لها إن تكسبت بعدين بل وحنو أرقني روشكي يو إيران ودوحوية يسهيين مركا تركي ودوحوية مارتي حرير كوديس كسي في عنادي لكن نصيب درو سعودي wuxuu ka shaqeynay inuu dalka Turkiga uu daciifiyo waan gartay qodobada kale uu ka hadlay waxa kamid ah wuxuu yiri waa in la sameeyo ciidan Carbeed oo dhisan isla markaasna siyaasadda Mareykanka hoostaga
maxay tahay ciidan carbeed oo dhisan oo siyaasadda Mareykanka hoosta isagoo sii raaciyay in ciidanka carbeed ay ilaalinayaan gacanka cadmeed iyo khaliijka marka inta badan ta bulshadu ay la yaabtay waxa weeyaan ciidan carbeed oo siyaasadda Mareykanka hoosta taa maxaa la odhan karaa taa waxaa la oran karaa wax weeye waa taa wax weeye loo baahan yahay imka wax weeye maaragtay ciidamada wax weeye maaragtay la ogol yahay ee raalida laga yahay oo Mareykanku wax weeye hubka uu siinayo oo yani maaragtay wax weeye uu ku soo tabciyo wax weeye waa kuwa awaamiirtiisa iyo arrimihiisa ku socda marka wax weeye ciidan carbeed magaca carbeed buu sitay laakiin wuxuu shaqeynaya wax weeye wadanaha Mareykanka askari Mareykanna kuma dhimanayo laakiin sadanaha Mareykanka way fulinayaan waa ayaan darawiya oo jirta marka wax weeye intaas waa intay wax weeye maartay iyagu ay ka wada hadlayaan mas'uuliyiinta Sacuudiga iyo Israa'iiliyaanka wax weeye isu yimaadeen ay ka wada hadlayaan laakiin kulay saxaafadda marka arimahaas oo kale la soo bandhigiyo waxa la oranayaa ciidan danaha carabta fulinaya ama danaha islaamka fulinaya waatay haddaan ku soo laabano arrimaha Soomaalida iyadoo qodobada ay ku jira ay badan yihiin haddana inta Soomaalida ka qusaysa haddaan ku soo laabano oo qodobka ugu muhiimsan shidaalka oo kale lagu sheegay in halka loo talaalayo Ethiopia la hooskeenayo ee Soomaalida taa haddaynu dib isu dul taagno aynu ku noqono isla markaasna ay tahay mid ay Soomaalidu aad u la yaabiso maadaama wadanka Sacuudigu yahay wadan dhul barakeysan maamulaya isla markaasna xajkii iyo magaalooyin barakeysan Makka iyo Madiina ay ku yaalaan xukuumadii hogaaminaysayna ay mar qura Soomaalidu ku indhaha ku kala qaadeen iyadoo la leeyahay Ethiopia la hooskeeyo iyadoo Soomaaliyana in badan ay ka dhacayso dagaalo isla markaasna lagu daray wadanka Djibouti oosna wadan ummad Soomaaliyeed oo xornimadooda hore u qaatay nabadna ah sida uu Sacuudigu sheegayo taas horta miyaanay mid Soomaalidu aad u la yaabtaan noqonayno fajac iyo wareer ku noqotay madaxooda waa arin aad iyo aad u khatar weeyo oo wax weey maartay waliba khatar weyn ku aqarinimada Soomaaliyeed waliba wax weey maartay yani waxaad oran kartaa wax weey burburka Soomaaliya ka jira qayb weyn inay ku leeyihiin Sacuudiga oo wax weey maartay waa wax yani khatara oo ayaan daraa waliba mugtay waa naga aragna mugtay saa marka wax weey wax u dhaciyaan marka wax weeye Ilaahay uu sahlo dadkan waa inay marka gartaan xagga cadaawada uga socoto way haddaan taas su'aal kale ka sii weydiiyo Soomaalidu inta badan imika xiliyadan dambe ee burburkii kadib waxay isu sii kala guraan maamulo kala duwan sida Somaliland Puntland Jubaland iyo qaar kale badan maadaama imikana waxaaba lagu sii daray iyadoo Soomaalidu ay saas waxyaabaha dhaca qaar dhacdan nama quseeyaan anaga la Djibouti baa lagu daray oo leeyahay waxa la hoosgeeyay Ethiopia taas maanay noqonay wax alla wixii Soomaaliya ku hadlaba in meel ay ka taagan tahay siyaasadani ha oo wax weey waa daga arkaa mugtay maamul kasta ee wax weey imka Soomaalidu ay leedahay xiriir fiican ma oran karno oo kaliya inay tahay waaba hoos yimaadaan xukuumadda Ethiopia caadi bay u hoos yimaadaan oo maalinta ku xigtana talaabo ka sii weyn ay u sii talaabisa marka waqti baa jirtay aan maskaxdeena inay gali karan inaanu aragno Ethiopiaanko xamar imanaya way dhacday waliba wax weeye maartay calamo qoyan lagu soo dhaweeyay haddana waqti kale baa jirtay aanu maskaxdeena galeen inuuna aragno nin ka socda xukuumadda Ethiopiaanka ee wax weeye siyaasiyiinta iyo madaxda Soomaalida hogaaminaya maantana waa naga aragnaa ninka wax weeye la yiraahdo gabra oo wax weeye maartay talaabo kasta lagu dhaqaaqiyo oo taagan ilaa xitaa hadii shir ay ku leeyihiin Soomaalidu Turkiga dalka Turkiga oo kale oo arkino isagoo fadhiya muxuu ka qabanaya barina marka waxyaalo kale in yimaadaan anigu ma yaabiyo ma fajiciyo waayo waxaan halkaas ka arkaa inay maalinba wax weeye talaabo oo la yaabno laakiin se yar kadib oo iskala qabsanano caadi noo noqonaysa baanu arkinaa waata haddaan su'aal kale ku weydiiyo waxaa jirta arrin inta badan xasaasiya oo siyaasiyiinta iyo shacabka iyo muddo 100 sano ka badan imika haddii hawada ku jiray oo siyaasiyiinta Soomaalidu in badan laga dooday oo ah in Sacuudigu aaminsan yahay in ay Soomaaliya xididka shidaalka uu ka qaato ka hooseyso isla markaasna ka fuuqsanayso haddii shidaal la soo saaro taan uu Sacuudigu u baabinayo taa horta maxaad ka aaminsantahay adigu shakhsi ahaan anigu shakhsi ahaan horta cilmigan petroleum iyo maartay iyo qaabka wuxuu dhulka waxba kama aqal laakiin si wax weyn waan dhageystay aqoon-yahano badan oo ka sheekeynaya marka
inuu sidaa mawduuc yahay anigu u malayn maayo laakiinse waxaan aaminsanahay kolley suuqa shidaalka waxa weeye xukumiyo markaa sacuudigu saameyn bay ku yeelanaysaa midda kale waxa weeye maaragtay hadday shidaalkaas uu soo baxo dhaqaalo ay soomaalidu yeelato awood bay yeelanayaan oo marka waxa weeye awooddaasna waxay keenaysaa inaan marka waxa weeye sadaqada ku baxda madaxdeena xaaranta ay ku cuniyaan oo ay waraaqo badan ay ku saxiixiyaan inay ka maarmaan waayo dalkoodii baa dhaqaale iska leh oo shidaal leh laakiinse markay ay daciif yihiin oo fakri yihiin waa la xukumi karaa marka muhiim bay u tahay iyaga inaanu shidaal marka geeska afrika ka soo bixin gaar ahaan dhulkay soomaalidu xukunto laakiinse waxaa jirta siyaasad kale oo ay soomaalida siyaasiyiintooda ku doodaan oo ah in sacuudigu dhowr jeer soomaaliya dagaal geliyey oo tusaale ahaan siyaasiyiinta taariikhda ka faallooda ayaa sheegaan dagaalkii 77 oo kale inuu sacuudigu danka lahaa dhowr mashruuc oo kalena uu geliyey dowladdii siyaad barre oo ugu talagalay inay sidoo kale dadka qaarna waxay ku doodaanba inuu dowladdii siyaad barre mashaariic fara badan ku taageeri jiray in ay dagaalo shacabka la gasho si aanay soomaaliya marna u dhigin taas maxaad ka aaminsantahay adigu ها أنا وأمسناهي وده وحوي مارتي كل شاب كمارتي سامالدا يكشران ما أنت وحوي مارتي واحد أورن كرتها إلا يو وقتيه هراء إلا يو حل قد ولدي سياد برا إني أدو قش قيسي أو مارتي وحوي بربر كده أنا سامين كل هاد حتى وحوي مارتي شكدا شدال كلفتي سوحوي الدجال كيكوه هين وحوي إنه يهيمت قديمية أو ما همد إمك بالعمي marka dagaalkaasuna maaha dagaal dhammaaday maaha waa weli waa sii socda anigu dabcan ma sheegiyo marka shacabka muslimka ee sacuudiga waxaan sheegaya waa maamulka sacuudiga haysta ee al sacuud reerka haysta waatay waa si wanaagsan taasi waa mid muhiima waxaanu ka hadlaynaa waxa weeyaan dowladda sacuudiga ama xukuumadda sacuudiga ama dadka talada sacuudiga haya inta badan soomaalidu marka sacuudiga lasoo hadal qaado in badan oo ka mid ah waxay moodayaan in dhulkii barakeysnaa laga hadlayo maaha waxaa laga hadlayaa dhulka barakeysan ee sacuudiga maaha shacabka sacuudiga oo in badan ay wanaagsan tahay jecelniyihiin muslimiinta in waxaa muuqaalkani ku saabsan yahay waxa weeyaan xukuumadda sacuudiga oo shir la gashay waddanka Israa'iil haddaynu ku soo laabano ninkan Anwar al-Ishqi leeyahay horta muxuu Sacuudiga u qaabilsay Soomaalidu gabre ayay taqaanaayo inta badan ay ka qeyleysaa laakiin Anwar al-Ishqi oo Sacuudiyana muxuu qaabilsay Sacuudiga ninkaas waa ninka ugu sareeya sirdoonka Sacuudiga ayuu qaabilsanaa oo waxa kaliya ka sareeyay ninka leeyahay Amir Turki al-Faysal oo marka wax weeye isagoo wax weeye Amir maaha laakiin waa ninka ku sii xiga Turki al-Faysal marka maadaama ay adag tahay nin amiir oo reerka mataliya inuu hawsha qaabilo marka wax weeye ninka ku sii xiga baa qaabili kara oo la yiraahdo Anwar Ishqi marka wax weeye wuu ku jira maartay telefishinada wax badan isagoo ka hadlaya wala arki kara YouTube-ka isagoo mowqifka dawladda Saudi Arabia taageeriya oo xaysiinaya si xiriir uu la yeelan lahayd dalka Israa'iil aadna wuxuu taageersan yahay waliba maartay siyaasiyiinta Israa'iil gaar ahaan wuxuu aad u taageersan yahay Benjamin Netanyahu waa siyaasiga wuxuu maartay ra'iisul wasaaraha ka imka maanta Israa'iil ninka wax weeye macangiga ah oo nabadnimada marka aad iyo aad uga soo horjeeda aan rabin xitaa wax weeye inuu wax yar oo kaliya xitaa Mareykanku waxyaalaha uu ku qasbo yiraahdo war halka wax weeye uu uga tanaasul Falastiiniinta diida ninkaas ayuu isagu wuxuu arkay inuu yahay nin geesiya heshiis fiican la gali karo waa Anwar Ishqi waatay gabagabadii siyaasiyiinta Soomaalidu inta badan arrinkan marka uu gaaro fajac ay ku noqonayso iyo inta muuqaalkan daawan doonta maxaad ugu baaqi lahayd inay ka hadlaan oo muuqaalkan ay ku soo galaan dokle waxaan u maleynayaa kama qarsoona laakiin shacabka Soomaaliyeed laakiin se wax weeye maartay waa inay inta in ka badan wacyigoodu ka sii weynaado waa inay ogaadaan khatarta wax weeye meesha uu ugu aaminayaan yani marka wax weeye shacabka Soomaaliyeed way garanayaan oo kama qarsoona khatartay ku haysato xukuumadda Ethiopia iyo ay ku haysato qaranimada Soomaaliyeed laakiin se waxyaalaha Ethiopia dawladda Ethiopia caawinaya inay ka mid yihiin dawlad oo aragno dawlad islaam oo walaalnahay
oo ah dowladda sacuudiga marka waa inay ogaadaan meelaha ay khatartu uga imanayaan oo dadna marka wax weeye markaad garatid cadowgaagu cidduu yahay tallaabo saad uga qaadi lahayd waad garan kartaa waa tahay dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin muuqaalkan intiina daawatay ee nasiibka u hesha iyo intiina kale ee muuqaalka la kulantaba waxaad samayn kartaan inaad muuqaalkan baahisaan oo sii sheergaraysaan oo sii gaadhsiisaan saaxiibadiin iyo inta kale ee aad degel wadaagtaan baraha bulshada iyo meel kasta oo muuqaalkan laga daawan karo dhammaan shacabka soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa in muuqaalkan ku saabsan yahay xukuumadda sacuudiga ee aanu ku saabsanayn dhulka barakaysan iyo dabka shacabka sacuudiga oo aada u wanaagsan haddaba aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin shargareeya muuqaalkan siina faafiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu